kadib ku dhawaad muddo 4 sano ah oo ay gacanta ugu jirtay koox kamid ah kooxaha xagjirinta ee dalka Mali ayaa mar kale dalkeedii dib ugu soo laabatay Sophia Petron oo ahayd lahaysay u dhalatay dalka Faransiiska. Sophia Petron oo 75 jir ah ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. hase yeeshee imaanshaha Sophia Petron ayaa markan muran dhaliyay, isla mar ahaantaasna dadka Faransiiska ay aad uga falceliyeen arrintaasi, baraha bulshadana si aad u qabsaday. waxa arrintaasi ay timid kadib markii la arkay iyadoo hagoogan xijaab. waxa ay Sophia sheegtay in ay go'aansatay in ay qaadato diinta Islaamka kadib markii ay ku qanacday. haweeneydan ayaa u bedelatay magaceeda Maryam. waxa ay sheegtay in ay ku qanacday diinta Islaamka, isla mar ahaantaasna ay aad ula dhacsan tahay. dadka Faransiiska ayaa si aad ah isu weydiinaya arrintan, waxaana ay bedelashada magaceeda ay mar kale sheegeen in ay tahay mid ay la yaabeen. qaadashada diinta Islaamka ee haweeneydan ayaa yimid kadib maalmo ka hor hadal muran dhaliyay oo uu yiri madaxweynaha Faransiiska, kaas oo lid ku ah diinta Islaamka iyo muslimiinta, oo ay ka falceliyeen muslimiinta, una muuqanayay mid gaf ku ah diinta Islaamka aan iraade iyo dadka haysta. Macron ayaa horay u sheegay in muslimiinta caalamku ay ku sugan yihiin dhibaato meel kasta oo adduunka ah oo ay ku nool yihiin, waxaana sidoo kale uu u gafay diinta Islaamka isaga oo taasi uu ku tilmaamay in ay tahay midda sababta u ah in dadka muslimiintu ay dhibaato ku noolaadaan. Petron oo 75 jir ah ayaa lagu soo sii daayay kadib wada hadallo ay la galeen diblomaasiyiin Faransiis ah kooxdii afduubka u haysatay. bishii December sanadkii 2016 ayayna ahayd markii la waayay haweeneydan oo ay gacanta u gashay kooxdii afduubatay. waa haweeneydii labaad oo muddo 6 bilood gudahooda la soo sii daayo iyada oo qaadata diinta Islaamka. horay Silvio Romano oo ahayd adeega arrimaha bini'aadantinimada una dhalatay Italy ayaa kooxda Al-Shabaab ay sii daayeen bishii May ee sanadkan iyada oo sheegtay in ay muslimad tahay. Sophia Petron ayaa sidoo kale ahayd shaqaale arrimaha bini'aadantinimada, waxaana ay dib ula midowday qoyskeeda.